Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. The problems we're discussing on this show, Islam fixes all of them, right? That's the first thing about Islam. And I'm not a Muslim, right? If I had to choose a religion, I would, because I live in an Orthodox Christian country, I go to the Orthodox Christian church. I donate $20,000 a month to the church in the country I live in. The church in Romania is very powerful, and I like having church friends. So I give them a lot of money, right? So I would guess I'm an Orthodox Christian. But if I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. Because Muslims are intolerant. And I'm not saying that disrespectfully. Because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing. Facts. Christians are so tolerant now. You don't believe it. They have gay pastors that I'm not even anti-gay. But if the book says don't have, like, what do you believe in now? If you're tolerant of everything, you stand for nothing. I can walk through London with a t-shirt saying Jesus is gay and nothing will happen to me. If I did the same thing with the Islamic prophet, I'd be dead before I got to the end of the street. Boom. That's how much they believe and respect. And I respect people who stick up for what they believe in. It's not even about me believing in it. I respect them because they believe and they will defend. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. They refuse to be insulted. And I respect that about them. I respect that. That's an amazing thing about them, right? And the third point is, and I've been all around the world, some of the best countries in the world today are the first world Muslim nations. Qatar, you can go to Qatar, you can fall asleep with $1 million on your lap in the middle of the street. Nothing's going to happen to you. Saudi Arabia as well. You can go to Saudi, nothing will happen to you. You can go to Dubai, UAE, nothing's going to happen to you. They leave their cars parked with the keys inside. It's so safe. Wow. It's so safe. Women, everyone's married. Every woman obeys her husband. Every single woman has 4, 5, 6 kids. Big families. All the things we're talking about, all the problems we have here, right? They've got none of that. None of it. Because of Islam. Islam keeps society in the role where women obey their man. Women have children. Women have big families. Women are exceptionally happy to do so. Before some Western girl comes in here and runs her mouth, the Islamic women are happier than any you're going to see in the club tonight. They're very true. They're happy. Society is functioning. Their population is growing because in most Western countries the population is declining. Tim Cass was talking about it today. I was talking. We were Two people have one kid. Doesn't work. Doesn't work, right? The 2 people need to have 3.1 kids because people die, right? People die prematurely, blah, 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 blah. So we have population problems in the West. They have none of the population problems. Society is functioning. And that's what society is. Society starts at the smallest possible group. You have families, and families make a street, and that street makes a village, and that village makes a town, that town makes a city, and that city makes a country. So if it's broken at the very fundamental level, if family level's broken, then it's broken the whole way up. Yep. And that's what's happened in the West. And the first world Islamic countries have none of those problems. So if you're going to talk about a belief system that fixes issues, you need to go to Islam. And I will say this that will fix everything. I just have absolute, even though I wouldn't identify as a Muslim, I have absolute respect for the ideology, respect for the mentality, respect for the warrior aspect of it. I respect it. They don't play. They don't play. You can't insult their shit. But you can insult the church all day. You can make fun of it. There's a show on Netflix about a gay Jesus. That's a joke, right? Ha, ha, ha. And what do the Christians do? Nothing. Christianity is a dead religion. If you're a Christian, and I'm saying this as a Christian myself, Christianity is a dead religion which is confined to the history books. It's dying out. Your own Pope. The Pope goes up there and talks LGBTQ shit. That's crazy. It is over. You don't stand for anything. You don't believe in anything. You have no boundaries. You're walked on. You're mocked. The whole thing is a joke. Being a Christian now is nothing more than advertising you're a loser. It's a losing religion because you've lost to Islam. haddii aan ku qasbanaan lahaa in aan sharad ku saabsan hal diin dhigto sida aan sharad ugu dhigto suuqa saamiyada mustaqbalka waxaa qasaba diintaasi inay ahaan lahayd diinta islaamka sidaa waxaa yidhi ciyaaryahanka caanka ah ee Imuri Andaru Tate kaas oo 4 jeer ku guuleystay horyaalka adduunka ee ciyaarta kickboxingka mar uu waraysi bixinayay ayaa waxa uu ku furtay in islaamku yahay diinta mustaqbalka wuxuuna si kulul uga hadlay diinta islaamka wuxuuna u difaacay sidii inuu muslim yahay inkastoo uu kristan yahay waa taas diinta islaamku waa diin aad garanaysa xaqiiqdiisa haddii aad si fiican maskaxdaada ugu fiirsato aad qalbigaagan uga waranto xaqiiqda
muuqaalkan wareysiga aynu ku soo daawanay bilowgii wuxuu la kulmay soo dhoweyn ballaadhan iyadoo Imuri Andrew Tate uu ku sheegay waxyaabo badan oo xiiso leh oo ku saabsan Islaamka. Andrew Tate waxa uu sheegay in Islaamku uu xal u hayo dhibaatooyin badan oo raggu la dhibaataysan yihiin iyo kuwo kale oo badan. tanina waa sax oo Islaamku run ahaantii wuxuu u yimid inuu caddeeyo arrin kasta uuna xalliyo dhammaan arrimaha nolosha. markaad dhibaato la kulanto waxa hubaal ah in Islaamku xal u heli karo. mana aha xal qura balse waa xal dhinac walba ku habboon dhowrayana xuduudaha dadka kale si uu u noqdo mid dhammaystiran. Islaamku kuma keenayo xal adiga ku badbaadinaya qayrkaana dhibaya balse wuxuu ku siinayaa xal dhinac kasta dan u ah. Andrew wuxuu xaqiijiyay inuusan muslim ahayn balse uu yahay masiixi orthodox ah. maxaa yeelay qaar badan ayaa markay arkaan qofkaas qaabkaas geesinimada leh uga hadlaya Islaamka waxay moodayaan inuu muslim yahay. waxaanaynuna Ilaahay uga baryanaa inuu soo hanuuniyo isaga. laakiin Andrew wuxuu ku nuuxnuucsaday in haddii ay tahay inuu doorto diin mustaqbalka ama sharad ku galo, diintaasi waxay noqonaysaa Islaamka. tanina waa xaqiiqo jirta. waana arrin aan muran lahayn. Islaamku wuu guulaysan doono aakhirka sida Ilaahay inoo caddeeyay, waana ballan Alle qaaday. Andrew wuxuu kaloo ku nuuxnuucsaday in muslimiintu aysan dulqaad lahayn, wuxuuna ula jeedaa marka la sheegayo inay ka gudbaan xuduudaha Islaamku dhigayo ee uu xadiday. wuxuuna kaloo ula jeedaa in muslimiintu aysan fudaysan arrimaha diintooda, ayna ula dhaqmin sida iyaga oo dhayalsanaya diintooda iyo caqiidadooda, ayna ku talax tegin waxay diintoodu farayso, ayna aqbalin cidda ku xadgudubta xuduudahooda cagsiga Kiristaanka kuwaas oo dulqaata ama dhayalsada wax kasta oo ka hor imanaya diintooda. wuxuuna ninkani tusaale u soo qaatay inay jiraan wadaad diimeed khaniis ah halka aysan muslimiintu marnaba aqbalin arrinkaas, isagoo sidoo kale ku nuuxnuucsaday in muslimiintu ay yihiin cidda keliya ee difaacda diintooda, sidoo kalena ixtiraama aan aqbalin cidda ku jeesteesta. Andrew waxa uu tilmaamay qodob kale oo ah in wadamada ugu horumarsan caalamka Islaamka sida Qatar, Dubai iyo Sacuudiga inaad seexan karto dariiqa ayoo sita lacag malaayiin dollar ah adoo aamina oo aanay waxba kugu dhacayn. waxaadna sidoo kale kaga tegi kartaa gaadhigaaga furaha wuxuuna ahaan doonaa ammaan. tanina waa qodob muhiim ah sababtoo ah wadamada kale qaarkood inkastoo ay horumar gaadheen ayna ku nool yihiin nolol raaxo leh, haddana ma dareemi karaan ammaan xitaa markay dariiqa dadku marayaan xitaa 1 daqiiqo ha ahaatee. Andrew wuxuu kaloo ku ammaanay qoysaska muslimiinta inay yihiin qoysas ballaadhan oo laga yaabo inay hooyadu haysato 6 ama 7 carruura, haddana ay ku nool yihiin hab saaxiibtinimo oo ka fog dhibaatooyinka hadheeyay qoysaska reer galbeedka. sidoo kale waxa uu tilmaamay in haweeneyda muslimadda ah ay ninkeeda adeecdo oo ay ku faraxsan tahay si ka duwan haweenka reer galbeedka. taasina waxay dan ugu jirtaa bulshada muslimiinta, waxayna taasi ka timid manhajka Islaamka kaasoo nidaamiyay nolosha qoyska, xiriirka waalidka iyo ubadka, iyo xiriirka u dhexeeya ninka iyo xaaskiisa. wuxuuna sidoo kale Andrew tilmaamay in qoysaska muslimka ahi ay yihiin qoysas tarmaya kana qayb qaata kororka bulshada, taasoo ka dhigaysa in dowladnimadu sii socoto oo aanay burburin. Ilaahay ayaana inoo soo dejiyey inoona sharciyeeyay diinteena weyne Islaamka, waana nimco mudan inaynu Ilaahay ku mahadinno. waxa kale oo uu tilmaamay qodob aad muhiim u ah oo ka duwan waxa warbaahinta laga sheegay ah in kororka dadku uu keeno nabaad guuriyo in khayraadku dhammaadaan. waana arrinka mar walba warbaahinta laynooga xayeysiiyo, laakiin xaqiiqdu waa cagsiga. waddanka Shiinaha ayaana tusaale wanaagsan inoogu filan maadaama uu yahay dalka ugu weyn dhanka tirada dadka, balse haddana ah dalka ugu kobaca badan dunida dhanka dhaqaalaha si ka duwan dalalka reer galbeedka qaarkood kuwaasoo uu hoos u dhac ku socdo kororkii bulshada. taasina maaha wax wanaagsan siduu sheegay Andrew, sababtoo ah bulshadu waxay ka bilaabataa waxa ugu yar oo ah qoys ilaa halka ugu weyn oo ah dowlad. taasina waa sababta uu Andrew u sheegay in haddii aad rabto nidaam caqiido oo wax walba hagaajinaya waa inaad aadaa diinta Islaamka. gabagabadii ayna soo qaadan arrinta uu Andrew wareysigiisa ku soo gabagabeeyey oo ah run dad badan dhibsadeen. wuxuuna sheegay in kastoo haddana uu isagu Kiristan yahay, haddana in masiixiyadu ama Kiristanku tahay diin dhammaatay oo khalaas ku dhow. wuxuuna tilmaamay in bulshada Kiristanku aanay waxba rumaysnin, aanay waxbana u hoggaansanin oo aanay lahayn xad aanay ka gudbin.
wuxuuna tilmaamay in wadaadka boobka ugu weyn uu soo baxay inuu ka hadlo khaniisnimada halka Netflix ay soo saarayso aflaam ah inuu masiixu ama nabi ciise uu ahaa LGBT ama khaniis halka malaa'igaba ku dambaabina mar haddii ay mirirayeen inay nabiga Ilaahay waxaas ku sheegaan hadda ku darto marna waxay ku sheegayaan nabi ciise inuu ahaa Ilaah haddana la salbiyay oo la dilay cajiib aynu soo noqono barnaamijkeena wuxuuna daru tilmaamay in dhaqamada ku racan ay Netflix ku sheegayso masiix ama nabi ciise haddana aanay kiristaanku ka gadoodin oo aanay waxba samaynayn ayna tahay diinta kiristaanku diin dhamaatay oo islaamku ka qaalib noqonayo iyada intaas ayuuna daru ku soo gabagabeeyay kulankiisii waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo ballan qaaday inuu islaamku guuleysanayo aakhirka laakiin qaardan oo muslimiinta ka mid ah ayaa ku dhacday rajo xumo sabab la xiriira iimaankooda daciifa kuntiya gunaanadkii islaamku waa diinta xaqa ah waana diinta Ilaahay uga raali noqday basharka waana diinta Ilaahay aan aqbalin iyada mooyee ciidu dambeedkuna wuxuu sugnaaday kuwa Ilaahay ka baqa ee ka cabsada guusha nasriguna aakhirka wuxuu sugnaaday diintan weyn waana nimco mudan inaynu Ilaahay ku mahadino intaas ayuuna ku eegahay muuqaalkeenu maanta intaynu muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaynu ku kala tagaynaa sidaas iyo salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh